waxay ku bilaabatay SYL sababtay ku bilaabatay waxaa ka mid ahaa waddanka markii horeeta isticmaar baa joogay talyaani ah isticmaarkaasoo muddo 50 sano ah waddanka haystay isticmaarkaasoo u diiday Soomaalida xorriyatul qowl u diiday isticmaarkaasoo dadka Soomaalida aan ogolayn inay shir suubiyaan ama isu yimaadaan apartheid bajri ka soconaanta nin cadaan hadduu ka hor yimaado ama naag cadaan haday ka hor timaado saas fajisada u salaamaysa hawaan istaagaysa haddaadan salaamin waa lagu qabanayaa station kan uu geenayaa waa lagu karbaashaya waxa lagu suuq ahaan baa lagu geenayaa dadka meesha suuqa baabuurada laga daaro dadka ka koraan inta la geeyaa lagu karbaashaya qofka habeenkii 15 May 1943 meel qol oo yar ayaan ku shirnay qol yar markaas ragga isugu yimid meesha tan isugu yimid waxay ahaayeen rag mutacalimi xoogaa cilmi leh shirkaas yaasiin xaaji cusmaan wuxuu ka soo jeediyey in aan ingiriiska warsanno حزبي معها سياسي معايا إنجليز وقتجاس وحو دجالكو كتشري سكور هسه يعني سكور وهي مركا سياسة قلينا لما أورنكرين مركز وحو يران كدينو حزبي اللي يرى وح أساسي وسياسية kuma jirin ee waxay ahayd bal horta dhalinyaradu ha isbarato meel ha isugu timaado waxa iska ku kala bedeshaan marka haddii la kala maqan yahay wax dhismo sheegi karo laakiin haddii la isu yimaado waxba dhalan karaya iyadiiba waxay ku dhalatay si ay u socotay in la yiraahdo warnimayo waxaan qabsano dadku waa bislaayeen Soomaalidu waa bislaayeen waxay u bislaayeen inay xoriyad qaataan laakiin waxay rabeen dad yani dhacsiya sida xorriyada loo qaadanayo iyo sida maxaa la yiraahdaa loo halgamayo iyo sida maxaa la yiraahdaa adduunka loogu faafinayo sharafta Soomaalidu leedahay ana keen qodob dhalinyaradaydii yay noqotay inaan intaas oo dhan u faafino dadkii yaasiin sida xaj waxaan kusoo sheegay xiriir buu la sameeyay wuxuu muddo intii nagu geesinimo geliyay inaan waxna aqrino idaacaadkana aan dhageysano ninkii carabi yaqaana idaacaadka carabiga u dhageysto ninkii yaqaana talyaaniga oo kan talyaaniga dhageysto ajiraha carabiga BBC da carabiga laakiin waxa dhageysan jiray odayaal ba dhageysan jiray kaliya si u barta ingiriiska luqadda ninkan yaqaan waa dhageysan jiray laakiin qof raadiyo haysaba hal raadiyo yaalay dadkiiba horta banaadig ba horta waa la walaaliyay oo qofka hadda markii la qoraxayo waxa lagu dhaarinayaa Soomaali yahay baa lagu dhaarinayaa shashi malaga qaadaya bishiina xalalsan qofkaas waa safraya xamar uu ka baxaya magaalada uu ku xigta iyo oranaysa meesha joogta aw ka meesha laga waa ka qofku waa tagaya saddex far qofkaas wuxuu soconayaa halka haduu ka taga meesha Soomaaliya ugu dambaysa ilaa afmadow kii kasoo ka yimaado uu tagaya ilaa Soomaaliya uu tagaya sharxin bixin maayo waa yaa bayada gees ilaa gees waxa safarka dadku isdhex marayo oo qof waliba saqayr hadin laga daawaranayo meesha uu ku dagahayo wixii baa inta la jeclaystay oo la walaaloobay oo hadii la ku isu danoo noqday بعد مارتي السوق حبيبي وحوالي ومداوية وحكلام معه وحن هالقمين يا وحن حرم جعلين ما أنا قبل ميل بانك هو دقال لميني عقلي بان نقوة ذكري
in calankaa un la suro baa dantayadu ahayd nin la qasbi jiray ma jiro nin walba